kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel walba aad naga daawanaysaan kusoo dhawaada Sayid Abu Media. Maanta waxaa istuudiyaha marti inooga ah Zaki bin Xaaji oo kamid ah youtuberada ugu weyn ee qaaradda Yurub. Zaki kusoo dhaw istuudiyaha Sayid Abu Media. alaabta mataqaanaa Aad iyo aad. alaabtaas adigana warkii waa tawinaysaa anigana body language waa tawinaya kulli wariyaashu waa taqaanaa Aad iyo aad. war waa mahadsantihiin dhammaan dhalinyarta ku xiran Sayid Abu adiga alaabta ii gudbinaysa adiga isku fiicniin alaabtaas luqada dhagoolada la dhahaa xataa wararka jasiiriya markii wararka laga soo deenayo kama fahansiinayo aad iyo aad Sayid Abu Media dhalinyarta ku xiran sharaf iyo karaamo annaga hadda isku baranay waliba markaa guriga igu timaadeen isbaranay maanta ina studio-gin inaan fadhiyo waliba muuqaalka biri soo bixi doona waa laga yaabaa inaan wixii hore soo saaro laakiin muuqaalada biri soo bixi doona aan studio-gin ku duubay xasuus gooniya bay idin tahay waxaan joognaa magaalada Toulouse dabcan project-gan u imaanay oo mashruucan u imaanay hadii waa iska gabagabo insha Allah biri oo 12 duhurnimo insha Allah inaan baxnaan rajeynayna oo aan Brussels ka degno marka marar kale badan insha Allah waa soo noqon doonaa dabcan khiyaartii anaga dhalinyarna ahaan dhalinyartii hore socodka lahayd xagga meediyaha wariyaashiina hore mid kamid ah idin la jooga taasoo keenaysa magaalada marwalba anaga inaan ka maqnaanin oo aan imaano markii aan imaadana inaan mataqaanaa dee saaxiibkay Aweys Abu ama Sayid Abu mataqaanaa dhankiisa marwalba inaan iga helaysaan oo available aan ka ahay aroosyadii xafladaha ku qabsataan oo kale Aweys baan soo xiriiri kartaan waa idin imaan doona insha Allah xafladaha waa la shiri doona insha Allah sidoo kale de waa reer France asalnahay Fransadii weyn hadee meesha waa sida Belgium kale ma Belgium kan waxaan ku jeclahay aniga maadaama Lille maadaama deganahay aniga reer France la ahay reer Toulouse inta ay garanay laakiin maadaama Lille aan deganahay Belgium kan ku jeclahay asagoo dhanba 3 saacadood waa meel walba loo saac hal saac waay bas meeshan waa laba habeen laba maalmood la soo soconaa inaad diyaarad ku timaadaan waay waa fogaateen meeshan halkaan iska camirateen yaa kala tashateen idin reer tamala wasiirta horta aadaan ugu faraxsanahay in aad nagu soo booqato magaalada Toulouse inta aad social media ku jirtay caqabada aad la kulantay ma jira niyo caqabadaha horta badanaa qofka abuurtaa kala kulma caqabada guud oo generally waa iska jiraan oo tusaale ahaan muuqaal aad diyaarisay oo kale timeka ama safarada inuu ku suurtagelin waayo qalabkii aad wax ku duubayso kale sometimes adigoo guriga ama studio ka soo baqan inay cilad kaaga timaado oo maalinkaas wixii aad duuleed ama programka uu ka baaqdo tusaale ahaan in safarada maadaama aad tahay oo kale inay telefoonadii kaamiradaha iyo wixii aad ay ka damaan oo kale xaalada caqabado noocaas kale way dhacaan laakiin sida generally sida kale markii loo yimaado si hoose social media waa lagu wada jiraayo dad waxaa jira maanta guryaha qaar aan martin karin wadooyinka si nabad aan ku mari karin laasan ninkiga iska socda Toulouse ka soo degaya guri walba iska tagaya meel walba laga casuum iska tagaya calashaan markii qof arrimaha bulshada ka hadla positive ka hadla dadka farxad siiya marka tahay meel walba tagi kartaa bulsho walba u tagi kartaa qowmiyad kasta la noolaan kartaa meel kasta qof laga jecel yahay soo dhow la dhahayo hadda Toulouse iska dhex qaado Soomaali istaagay maqaayadaha Soomaalida iska tago mid walba soo idhool cadeynay soo dhaweynaya laakiin tusaale ahaan dadka xogaha barnaamijyada caadifada la ka sheekeeya barnaamijyada xasaasiyada la ka sheekeeya de guryaha qaar ma martin karaan meelaha qaar ma tagi karaan oo dad baa qalbiga wax ugu haya hatta at least waji qurux badan inaan lagu soo dhaweyn baa dhici karta marka caqabadahaas guud oo cid walba social media ku jirtaan kala simanahay maaha caqabada gaar ah oo aniga ma taqaanaa shakhsiyan ma jiraan social media goormeed ku soo biirtay social media ha qoraalada u soo joogi jiray markii ma taqaanaa uu isku bedelay muuqaaladana waa soo joogay oo anigana waa isla gediyo dhankii muuqaaladan ku soo biiray aaladaha TikTok iyo markii ma taqaanaa de loo sii gudbayeen waa macnaha normally hadii qoraalkii aan ka soo qabto waxaan dhihi karaa 16 17 18 waagi postiyada Facebook aad loo isticmaali jiray dadku wax qori jiray waan kamid ahaa